weyto gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Baasha Maxamed Faarax ayaa waxa uu soo saaray waraaq uu xilkii kaga qaadayo Xildhibaan Naasir Cali Shire oo ahaa gudoomiyaha guddi hoosaadka golaha wakiilada u qaabilsan ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka. Haddaba xildhibaankaas ayaa hadda barbarkayga fadhiya. Naasir Cali Shire gudoomiyuhu waad ogtahay xilkii uu ka qaaday sidaad u aragtay. Bismillahir Rahmanir Rahim. runtii waa xilka qaadista laga qaaday gudoomiyamadii guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka afka Ingiriisiga loo yaqaan Public Accounts Committee. runtii anagu waxaan arkaa xilku waa meerto laga odhan jiray dee sunnaha shaqada ayaa caynkaasa. aniguna runtii waxaan hore u sheegay in ay tahay soo socoto marka arkay waxa meesha ka socda. waana dhacaysaan ku fikraya dhacday runtii saan ku fikraya waa dhacday. anigu marka waxba ma arko waxaan arkaa in insha Allah tacaala in aan dardar kale gelin doono hadba halka amtii gudol lagu daro in baaritaan aad arrimo gelisaan oo la leeyahay de guddiduuna intii dabada si wacan bay u shaqaynaysay markaad arrin farta ku fiiqdaana xilkaagiiba inay galaafato ay keentay way dhacaynkaas sidaad u aragtaa professor waa tahay jaamacaddiga dabcan xildhibaana balaarinta horta runtii horta waa nasiib darro waxay nasiib darro ku tahay qaranka Somaliland kumanaan iyo boqolba u soo halgamay runtii maanta nabadda aan ku naaloon iyo sharafta karaamaana dad baan soo horay waxa ahayd dadkii soo gaaray imika halkan in halka ka si aan baqaadaan oo ay la yimaadaan aqligii ay dalkan horumar dhaqaale iyo horumar dhinac walba ay ku gaarsiin kara lahaayeen. laakiin hadaynu muxuu ahaa hantiyeeda yar ee shilimaadka hadaynan urursan karaynin oo aynan ka shaqaynaynin si dadkan looga horumarin lahaa walaal waa nasiib darro jirta. waxaana nasiib darro kale ah حتى كوي محوها قار كميدا دتك وحن سمينيا أما هنتي لونسنا ووحير دتك أنت كان وين تبادل تاسمع هذا بحويه أنت يريد با هايستا أنت بدنيت أو لو بهاي public opinion كونه مرة والبا نقضوا وح فكر كود يقرن نمود يدنمود يهرمر كود دقال إدع والبا إني ده إني شنتي مرة والبا عبرانو شجعان طبعا كحوم هايرنتي وادكم هادساتو horta sida Aerial TV aad waraysigan dabcan u siinayso waxa jira dadka qaar amaba xildhibaanadiina amaba qaar kale waxay u arkaan in ay leeyihiin Naasir Cali Shire golihii uu ka dheereeyay oo xawli buu ku socday oo in waxay ahayd golihii ma ogtay talaabadiisi waa ka dheereeyay sida halka wax u wadayna daad xawaari ku socotay inaad degdegtay oo aad xawaare ku socotay iyo arinta maxaad ka leedahay anigu marna xawaare kuma socon waajibaadkii guud lahayd baan fulinay waxaan hore u sheegay laba guddi aan soo maray dhaqaalaha labada iyo guddan imkaan joogay imka joogay loo yaqaan Public Accounts Committee labadaba shaqadii la ii igmaday baan qabtay dadka xawaaraha ka hadlaya waa dad shaqooyinkii guddiyada ay hayeen ama meelo kala hadalka aan shaqadoodii gabay laakiin waxaan qabaa haddii maanta gol u shaqayn lahaa saan u shaqaynay muddo ku dambayso kaliya maanta qarankan isbedel ku sameyn kara way cid oversight kale inay check and balance ka ilaalinta ku ilaaliso xukuumadda iyo cid kasta inay sideedii loo igmay u shaqeynayso waa baarlamaanka waa waajibaadkiisa koowaad markaan waajibaadkiisii koowaad ee baarlamaankan gutay marka cidna kama dheeray gudoomiyahaagii xilka ka qaaday wax fariin u diraysaa ma jirta baash waxaan oranayaa waxaan runtii ugu baaqi lahaa inaanu ku samayno curdan dhalin waxa la yiraahdo ifafaalaha wanaagsan ee goluhu maanta uu ku dhaqmayay aniga iyo guddiyo kaleba aan ku dhaqmaynay ee maanta soo jeetay indihii dadka reer Somaliland ee kuwa qurbaha jooga iyo kuwa gudaha jooga oo u abuurtay rajo laakiin anigu waxaan leeyahay ma yahay sharaftiisa inuu wax goluhu maanta magac ku yeeshay oo gidaar lagu jabiyay oo cid walba ka hadlayso inuu maanta isahado baabiyo oo dama basin isahado ma ahayn Badri Koosar Maxamuud telefishinka Aerial Hargeysa.